waxaa jiraan goobo aad iyo aad u qurux badan oo ku kala yaala daafaha caalamka dadkuna ay u dalxiis tagaan sanadkii. Haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa goobo aad u qurux badan adiga nafseed ahaantaadana aad ka heli doontid, waxaana jeclaysan doontaa inaad mar uun tagtid. Haddaba goobahaas maxay yihiin? goobta koowaad Skyway ee magaalada Nelson ee waddanka New Zealand waa goob aad iyo aad u qurux badan, waxaana meesha ku yaala gaari midkaas oo ku soconaya meel aad u dheer, waxaana kori kara 4 qof oo kaliya, wuxuuna dhererka socodkiisa gaarayaa 700 oo mitir, wuxuuna gaariga soconayaa ilaa 10 daqiiqo. goobta labaad The Bite Motion Coaster waxay ku taalaa magaalada Revelstoke ee waddanka Canada. waa kursi aad iyo aad u yar, wuxuuna deeqayaa 1 qof oo kaliya, waxaana loo sameeyay bir aad u dheer, wuxuuna dhererka socodka gaarayaa 14 kiiloomitir, waxayna dhex maraysaa geedaha hoostooda iyo meelo aad iyo aad u yaryar, wuxuuna socodka xawaaraheeda gaarayaa 42 kiiloomitir. goobta saddexaad waxaa la yiraahdaa Torpedo, waxayna ku taalaa magaalada Orocovis ee Puerto Rico. waa xirig aad u dheer, wuxuuna dhulka u jiraa 350 mitir, waxaana qofka garabka lagu xirayaa xirig aad u adag, waxaana taraarixinaya qof kale, wuxuuna kor marayaa buuro ay ku hareeraysan yihiin geedo, wuxuuna socodka xawaarihiisa gaarayaa 150 kiiloomitir. goobta afaraad waa buunto ku taala magaalada Tinshanshin ee waddanka Jeenaha. waa buunto aad iyo aad u dheer, waxaana dhulka u jirtaa 600 oo mitir, waxayna u dhaxaysaa 2 buurood, waxayna buundada dhererkeeda gaaraysaa ilaa 200 oo mitir, waxaana jira meelo yaryar oo bannaanan marka aad soconaysid. goobta shanaad waxaa la yiraahdaa Hang Time, waxayna ku taalaa gobolka California ee waddanka USA. waa wiifo aad u qurux badan, waxaana la furay sanadka markuu ahay 2018. waa meesha ugu quruxda badan ee loo dalxiis tago gobolka California. marka loo eego dhanka dhererkana waxay gaaraysaa 46 kiiloomitir, waxa uu ka kooban yahay 4 kursi, wuxuuna deeqaa ilaa 16 qof, wuxuuna xawaaraha socodkiisa gaarayaa 92 kiiloomitir.